waxaan aad iyo aad soo dhaweynaynaa dhammaan marti sharafta iyo martida faraha badan ee ka timid daafaha adduunka ee u timid carwada lagu soo bandhigayo buugaagta sanadkan ee ambaasador hale ee aqoon-yahan leh ee siyaasiyiin leh oo aanu arko inay yihiin saaxiibada Somaliland aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa anigu soo dhaweynaa si kaliya laba waxaan ku faraxsanahay intaan la joogtaan waxaan jecelahay inaad baran doontaan Somaliland waxaan ku darayaa sanadkii hore iyo sanadii ka horeeyay 12 sano uu socday carwada bandhiga buugaagtu saaxiibadii iman jiray dhamaantood waxay noqdeen saaxiibo Somaliland oo caalamka gaarsiiya warka Somaliland iyo samaanteeda idinkana inta ku cusub aad iyo aad baan soo dhaweynaya insha Allah inaad inta ka mid noqotaan aad iyo aad soo dhawaada waa ku faraxsanahay inta joogtaan aad gari wanaag nagula jooga maalmaha waxaa jira oo miduu hadal hayay guddiga laga magacaabay dawladda Muqdisho oo magacaabay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi guddida marka la magacaabayo waxa horta ka horeeya ujeedada loo magacaabay ee hawsha loo diray hawsha loo diray guddida waa laba qodob midna Somaliland ma xuseeyo mar haddaanay xuseyn Somaliland waa ka gaabsanaa wixii gudahooda faragelimayno qodobka koobaad waxa uu diray guddida inay dhameeyaan tabashooyinka walaalaha Somaliland waxay la tahay tabashada cidda ka tabanaysa ee uu garanayo walaalaha la jooga waa inta isaga la joogta ee u shaqeysa marka haday ku haysto ka tabanayaan inta isaga u shaqeysa haday wax ka tabanayaan waa u taala balse Somaliland madaxweyne Maxamed Cabdullaahi intii uu xilka yimid waxay ka aragtay oo kala kulantay cadaawad aan hore loo arag 28 sano ee ka dib bixii Somaliland iyo Soomaaliya 28 ka inta sanadood intii madaxweyne ee joogtay cadaawad aan laga arag oo dhinac walba ah ayuu Maxamed Cabdullaahi bilaabay oo uu qaaday oo joogto ah hadiya haday tahay mid faragelineed mid ciidan mid dhaqaale mid propaganda dhinac walba oo tulaan lahayn waana wax ugu wada og yahay oo imka idin tirimaayo caalamka oo dhan baa tii shalay ariga ugu dambeysay ay wali ceebtooda ku faalan anaga sii deynay markii caalamku ka garowsan waayay ama dadkii xajka ahaa xoolihii ay ka iibsadeen barbare lacagtooda qadimo ay hor joogsadeen in caalamkii la yaabay ayaa ay ku dacweynayeen shir BBC ka lahayd anaga wax soo deynay arrinta hadda si dhaweyd ka warrabo ariga banka islaamka dawladaha wax ka iibsado ariga oo ka iibsado waxa ugu weyn Soomaalida inta badanna wuxuu ka dhoofaa barbara dhawaashaha dekada oo ku haboon iyo dekada kala qaar laakiin waa u badan saacada marka dhowr bilood ka hor ayuu banka islaamigu meelaha ariga uu ka iibsanayo dhan ariga ka iibsaday waliba lacagtii horumarinta uu siiyay ariga la iibiyo meel walba marka ariga la raray waxa lahaa banka islaamka ayaa lahaa ganacsatada Soomaaliland heshiis bay ku wada jireen in inta qadibaada ay hayaan xoolaha la raray ay xoolo caafimaad oo ku yahay data banki iyo waxay saysteen nimankan ku jooga dawladda Sacuudiga banki ay hore u leeshay heshiiska sameysay waa cadaawad halka gaarsiisan tusaale baan ka siinay cadaawada farmaajo ku kacay hadaad dhageysateen clip YouTube ku jira wiil yar oo dhalinyaro ah oo burca ka shaqeeya bulshada markuu hadlay wiilkaas wuxuu reer faqir ka dhashay kooras baa laga diray markii aan sanad joogay waa kooras reer lacag kala baatay qaahira jaamacadda ku jiray waxaan application u qortay safaaradda Muqdisho deetana wuxuu yiri waracaynkaas aan ahay koorsada waa tan la qaybinayo dadka la siinayo qaar aan Soomaali ahayn asaasaan hal lagu qoro kooraska marka labadii nin ay joogay way isweydiiyeen ninkii Arabka ahaa ee qaybinayo u keenay waa hal si waxa ma Soomaali ma aha way u diideen muddo u sheegay dheer ana garanay inuu ku noqonayo bariyay waxa war cid walba waa siinaysaa Soomaali ba ku hadlay hal ay soo walo diid u taariikh 13 maray sheekadiisu ka sheekeynay waa ka wax magaca Soomaalida wada bixiya arday mustaqbal Soomaalida baranaya loo diiday shalayna nin isaga u shaqeeya wuxuu ahaa arday badan ma koorsiyaan baran aan meel geeya
malaha waa qolada wax tabanaysa barida isaga koorsiisi marka waxaan leeyahay qodobka hore waa ka Soomaaliland cadaawad baa ka dhaxaysa Soomaaliland ninka soo weeraray cadawga wax kama tabatan mana barida way iska celisay waana la iska kaacinay qodobka labaad wuxuu yiri waa in la hirgeliyo guddiga ay hirgelisay mabaadi'da federaalka tii federaal shaqo ku bari waynagii kala baxay 60 waynu midoobay inagoo frontiera waynaga dunta 19 wixii aan wada dhisanay midkeen badan gaar u soo taagay adigu federal baa tahay dastuurkaaga aad leedahay cidii ku dooratay weey Soomaalilandna waa republic waa jamhuuriyadda Soomaaliland dastuurkeeda leedahay madaxda ay dooratay hawsheeda wata marka hadii dawladaha caalamka ay ku ictiraafeen Soomaaliland inta la ictiraafana anaga jirtaa adiga kuma khusayso labada qodob markiisa ay waxa kala deel qaaf ah oo yana aqliga aan galin guddi u magacaabo wuxuu Soomaaliland baa doonay in la wada soo shiino rag Soomaaliland u dhashay uu soo magacaabay oo isaga la jooga taasi waxa weeye Soomaaliland ana ila joogta hubaal waxa weeye waa run dadka kula jooga waa dad Soomaaliland u dhashay laakiin adiga ku yimid ee aan wadi qadadii Soomaaliland iyo go'aankii Soomaaliland mana dhici karto mana suurto mase inay Soomaaliland u hadasho dad farwaajo u shaqeeya Soomaaliland waxa u hadli doona dadkeeda haya xilkooda iyo codkeeda ee ummadani dooratay ama u imatay ama ay u dooran doonto inay u hadlaan arrimahaasi mana suurtoobi doonto haddii wada hadalba yimaado oo cidlo ka heshiisay malaha intaa joogta cidlo ka heshiimaysay dad Soomaaliland ka mid ah inay ka yimaadaan dhinaca ay Soomaaliland wax ka doonayaan ay haystaan saddexda qodob taasaan kaga tagay qodob kale ayaan u dirayaa xisbiyada mucaaridka saaxiibayaal waqtigii doorashada bisha August 10keeda hadii naga gaadho sharcigu wuxuu dhigayaa in loo gudbiyo guud caawana waxa joognaa 20 July waxaan rabaa 20 waxaan ku murminaa waa laba la kordhiyo la kordhin horta waxa muhiim ah laba lagu daro guddiga doorashada mise inuu doorashada loo dhacdo weydiinaya waa saaxiibada waxaan leeyahay laba la kordhiyo oo imka sharci ah la bilaabo macquul ma aha sharcigu sidii ku galay maanta labada markay dhamayno baarlamaanka oo horeysa aynu kororsan laakiin 20 cisho sharci hal la furo oo hal laga doodo maxaa loo kordhiyaa maxaa laga dooday maxaa dhacay oo baarlamaan ha loo geeyo oo cod la geeyo taa walaalayaal doorashada waa inaga dhaxumaanay gaari mayno 20 cisho aynu haray labada xisbi waxaan soo jeedinayaa dalku doorasho u baahan yahay doorashadii labada xubnood ee doonaysaan maalinta doorashada ka baxay ajendeena horeeya ha noqdo maanta haddaynu hawshaa galla ka bixinayna waxaan soo jeedinayaa inaynu doorashada gallo oo aynu ka midoona waxaan mafdhicil baan misamaha hadalkiisa aad iyo aad u mahadsantihiin